gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faysal Cali Waraabe oo qaybo kamid ah warfidiyeenka kula hadlaya xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool. waxa weeye waxaan dirinaa baaq nabadeed baan dirinaa waxa weeye waa ogtihiinoo laascanood tuulooyin ku beegan meesha la dhumay oo laba beelood hore isku dileen oo muddo badan dawladdu ku kala dhex jirtay hogaamiyaha wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha wakiiladu ayaa isku soo noqday dagaalada qabaa'ilka hadda socdaa maaha kuwii berigii hore markaan aan yaraayo kale qoriga qore xabad ka dhacayso ay isku dili jireen maanta technique isku dilaan hubkii jabhada haysan jirtay ee dawladda lagula dagaalamayay ay ku sidaan hadda waxa la soo sheegayaa tiro aad u fara badan wala waxay leedahay waa 36 wala waxay leedahay waa 250 inta dhimashadii cid u gurmatayna ma jirto waxaan aad iyo aad u amaanayaa ciidamadeena qaranka difaaca qaranka oo shaqadii difaaca qaranka ku darsatay peacekeeping in nabadda ilaaliya oo ku robad go'ay ayaa ku kala dhex jiray ka xunahay in la yidhi ciidamadii dhuubay magaalada la isku hayo kala dhex joogay ayaa laga qaaday tama waxaan leenahay waa mid horta si degdeg ciidamadii loo diraan leenahay talabaad waxaan leenahay garanmayna dadka qabaa'ilka isku dilay aakhir meel tagay xisaabtooda diiniyana dagaal casabiya qabiil waxa la yiraahdaa kii ku dhintay kii aan ku dhimayn ku dagaalamo waa ilo naar balayda dilka foosha xun halka jooji waxaan leenahay dadka madaxda culimada diinka waxaan kala dhex gala waxaan Soomaaliland ku baaqinaana in arintana waa arrin in wada saameysay in lagu koobin beelaha isdiliya waa arrin qaran oo Soomaaliland la taagan horaan oo eri Soomaaliland waxa moodaa inay tahay dabdamis kaloo meesha rabashay ka dhacdo yuma ku orday si dabdamiski taas waxa weeye waa tayo la'aanta iyo sharci la'aanta ka socota dhulkii ay Soomaaliland xuduudaheedii maga waxaan leenahay badan reer ilaahay waan isku dhaariyay dagaalka asabiyada ah ee ahli naarka ah joojiya baan leenahay aakhirina waa idin cadaab ifkana waa idin raf haday bahalka joojin weyna caruurtana waqtiga ka luminina hooyooyinka ka oohinina aarka ka barakicinina aakhiro wala kul xisaabtamaya aakhiro lagina madaxda gudoomiyuhu dhanka kalena waxa uu dawladda ugu baaqay inay arintaasi si weyn uga qayb qaato isla markaasina colaadaasi si degdeg ah loo soo baaqna in arintan loo galay si TLF weyn oo la culaysiyo oo la xaddiga Sool in la yiraahdo dagaalka ka dhacaya كاعيل وفيني كادومي يكاد دكيجي انتو wax uga dhacaysana waa maamul aan meel aan law and order ka jirin waxay wax xun ba ka dhaca waxa leenahay dawladdu waxa leenahay xoog hala saaro in maamulka Soomaaliya geeyo dhulka at least ba ayna joognayno dhulka ay marka aanayna joogin inaga badaayo inta aynagu joogno maamul adag haloo sameeyo oo ceerigaaba ka mid tahay ceerigaaba ligliganaysa waa meeshii Soomaaliland ugu horeysay nabad lagu qaatay ayaa ligliganaysa oo ogtayna wixii ka dhacay deeday sheegi maayee in badan waan maqlayn taas ayaan xasuusinay laakiin wax baa ka dhacay ugu tagay taliyeen ciidanku deelanaga aqbali maayo na ictiraafa inagoo dhulkeeni
aan sharci ka soo colaadan ka dhacday koonfurta gobolka Sool ayaa marar hore soo noqnoqotay shalayna waxa mar kale beelahaasi dagaalkoodu ka soo cusboonaaday koonfurta gobolka Sool iyadoo la soo sheegayo in halkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac labadaba ay jiraan Cabdi Fataax Ismaan telefishinka Somali Cable Hargeysa